ورحمة الله وبركاته. وعن أمرنا يا إنا إذا خطبت تشيدنا إنا هيس تشيدان. لكن سوى حديث شيء يا أنا وعاو بكعين ما نقبيو ما نهيسو ما نماديو. وحكيني بنان وحوجا وانا عاوة حبيبي تاريخ ده لقيش شقين جرينا بجون وكان يركزتي على كا وحكوكو وني تاريخ لني على كا ماذا حيدين وضع الصورة يوم بنتيرو مركا هن ولا تسمع له هن ولا تسمع له على كذا حتى أجنبي هدي تري وكا واحد إذن هي فرين هذا واحد إذن هي فرين مدحبين ودي صوت دري فرين توحي لا ذا عاوة وحي سوتي مادين وحسك سنة جوردي لبي اللباتنات إدب وصور مباشرة مدحبنا عنيدا يقرأ نبدا السومالي له جاليدها السومالي لأن إدبدا جدبود يدلك قديسة waxay xuska u sameeyaan sanad walba si ay u cusboonaysiiyaan taageeradeeda iyo iimaankooda iyo siday ugu degan yihiin madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliland waxa jaaliyadaha dibadda jooga xil gaar ah saaran gidgood waa safaaradaha Soomaaliland qof walba laga bilaabo caawa ana inta ku darsaday waxa ka mid ah ku xigeenka safiirka wuxuu ku soo gunaanaday asagoo inoo ducaynaya salaantii dhanna idin soo diraya assalaamu calaykum waraxmatullaah madaxweynuhu waa ku ammaanayay waana ku mahadnaqayay salaanta waxaan doonayaa anigu haddaba caawa inaan dhowr taariikhdeena saddex qodob ka soo qaado mar waxa weeye dadka halganka soo sameeyey siday u mudnaa waxa kaalinta kow ka ahaa gabayaasheenni abwaanadeennii fanaaniinteennii taariikhdeenna iyo dareenkeenna sida fiican u tarjumay ee u sheegi jiray waxa ka mid ah odayaasheenna gurtida dhibaatada markay timaado qadejin jiray halkankana hogaamin jiray ilaa markii dambena suuragal ka dhibaato kastoo inala soo gudboonaata sidii wax looga qaban lahaa ee loo dejin lahaa ee wadada saxa loo marin jiray ayaguna waa maadsanyihin waa caawa qaabkiina kala joogaan gurtidu maaha dalka gudihiisa oo kaliya joogta guurtidu jaaliyad kasta meel kastay joogto guurti bay leedahay caawana waa ku halkayna la joogaan ayaguna waa maadsanyihin waxa ku xiga waxa ka mid ah halganka dhalinyarada naftoodii u hurtay ee ka qayb gashay halgankii iyo dagaaladii iyo dib u xoreyntii iminkana uu saaran yahay garbahooda mustaqbalka iyo jiritaanka iyo horumarka Soomaaliya habla iyo inamaba waxaase intaaba ka sii mudan waa hooyooyinka iyo gabdheenna u dhabar adeegay halgamadii aad moodaan wax mudan inay inagaga horeeyaan halganka iyo dhabar adeegiisuna fankana waa inay naga horeeyaan ayaguna waa mahadsan waxaan doonayaa haddaba xoogaa saddex qodob caawa waa xaflad 22 guuradii sanad guurayaasha waxaa loo sameeyaa waa in la qiimeeyo oo la xisaabiyo dhibaato wixiina soo maray guul waxaynu gaadhnay waxa iminka inala soo gudboon saddex dhibaataa hadii jeer Soomaaliland la soo gudboonaatay saddexdaba midba sibay u galeen
dibaatada ugu weyn waxay ahayd taynaga gudaheena waxaynu dhaxalay dal aan waxba u dhisnayn wax walba dunsadeen koob iyo sagaashankii markii la shiraayay baa lagu shiraayay geed hoostii baa lagu shiraayay marka waxaynu wax ka qiyaasaynaa geedkii aynu hoostiisa ku shiraynay ilaa intaynu ka soo soconnay maanta waxaynu leenahay geed hoostii lagu shiro golo guurti baynanay golo baarlamaan baynanay madaxtooyeynu leenahay dal jira baynu nahay dhibaato wayna soo martay dhibaatada ugu weynna waa tii dhexdeenna taana waxaynu lahayn guurti marka dhibaato dhacdo dadka dejisa nabadaysa horumar wada dhibaato ka soo dhacda waxay noqotay mid aynu wax ka baranno tusaalana ilaa maanta inoo ah si aanaynu mar dambe u maqlin laba dhibaato kale madax bannaanideenna iyo qarannimadeenna waa laynagula gorgortamaa waa laynagula loolatamaa laba loolan baa inagu socda had iyo jeer loolan waa ka Soomaaliya inagaga socda loolanka kalena waa ka adduunka inagaga socda loolanka inagu markii hore waxaynu isku koobnay labada loolan waa iska dhignay oo waa ka indhaqarsanay oo waxaynu isku koobnay inaga loolanka dhexdeena maanta 22 sanadood ka bacdeeda wax la joogaa maalin loolanka dhexdeena uu soo dhamaaday oo aynu midaysanahay oo nabadnahay oo horumar u socono marka wax la gaadhay tii labada loolana kale wax laga qaban lahaa walaalada Soomaaliya anigoo idinka wakiila fariin baan u diraynaa caawa fariintaasu talo iyo garnaqsiba way xambaarsantahay waxaan leenahay walaalayaal midnimada tan aan daba wadaan midnimadu way fara badan tahay horta idinka muuqato kii aan asagu nabadahay sideebo adiga kula nabdaya kula midoobaya taasu waa nabad midnimada waa taaqood mid labada kale midnimada waa tii berigii hore 60kiiba aynagu ka qayb galay ee Soomaalidii kale tii Djibouti tii Ethiopia tii Kenya ee gidigeed la helo midoob maanta Soomaalidii Kenya ee halka ka joogtaan waxay ka mid yihiin dadka Kenya oo raali ku yihiin Soomaaliya Ethiopia ee inuu dagaalanay ee waxa uu sameeyay waxay ayaguna maanta dantoodii u arkeen inay dalka ay la midoobaan oo horumarkooda ka shaqeeyaan oo maanta halka horumarkoodu marayo waa wax lagu amaanaa lagagana dayda hadaba Somaliland energyna وتا إمكا وزير الخارجية يالتي وزيرة كلا يالتي برلمان كيالتي كبد نقطي أرمود كدل كينيا أيونا وكو أمانين أو أيدين كنا كبتين كو واحد صهر مركا واحد لبا يسكو صهري أنا لبي الله تكي سنوات نبض بين أبو الري عدالة بين أبو الري ديمقراطية بين أبو الري هرمر بين سمعينين ولا الذي محلل إنك كتايدا وإذا كان يجيب الشيء دكانش ينبض أيها أساسا كل دافنا أو تتين دريا تأدونك وحاول تميزتي والله كأدونك دباش عالمك الدولة ده إن غير الدولة ده واحد وشيرينا وان أنا قاعد شعل إن سوماليا دكتور أنا قاعد دان تيلا تاي إن الكحيسة الله قدم بيو أنا قاعد دان تيلا تاي إن عن إسكاسر لكن سوى حنو شيرينا قابك أي أودان إن أنا أهين مد قول لو قاعد أيو top afar shan jeer la isku dayay afartii shantii jeer ba way fashishay oo meel bay u waayay waayo waxaan ahayn marna kala ummadda Soomaaliyeed ka timi ee waxay dusha laga saaraya maantana waatii dadka Soomaaliya waxaan kula talinaynaa
داني مدوبة داني نكشخينا تينا سكامدا مركا وحنا قطان ديار بانون هاي وذا هذا ديار بانون هاي إسكاشي داني هنا نسكاشنو مركا سلايين وجلي وأنا